Bismillahirrahmanirrahiim waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xilidan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafi Show waa 27ka bisha 6aad 2026 maalinimo Sabti ah marka hore waxaan idinka codsanaynaa inaan ku jirno barnaamijka challenge-ga ee 300 oo qof inayna daawadaan bisha dhexdeeda nagal rabo mar walba qof walba oo ku hor yimaado barnaamijkan waxaan ka codsanaynaa inuu laag iyo share meel fa ku gaarsiiyo mahadsanidin aad iyo aad ayaad u mahadsantiin aynu ku horeyna ku xigeenka madaxweynaha Mareykanka DJ Pence ayaa aad iyo aad ugu hanjabay dawladda Mareykanka dhinaca kale ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa hadda ku dhawaaqay si adag inay ugu jawaabi doonaan waxa ka dhacay dalka Iran dhinaca kale waxa soo baxay diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa xalay ka fuliyay gudaha Iran weerar aad u xoogan iyadoo la sheegay in weerarkaas uu socday ku dhawaad dhowr daqiiqo inuu ku bilownay hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay Cabdikariin Cabdullaahi Idlo ay muddo raadinaysay hay'adda dambi baarista federaalka Mareykanka ee FBI-da loo soo gaabiyo iyadoo kadibna lagu wareejiyay mas'uuliyiinta Mareykanka sida lagu sheegay war ka soo baxay FBI-da Cabdikariin waxaa loo haystaa eedeymo la xiriira musuq iyo khiyaano dhaqaale oo ay sameeyeen Soomaalida ku nool Mareykanka FBI-da ayaa sidoo kale si rasmi ah ugu mahad celisay NISA oo ay wada shaqaynta iyo kaalintii ay ka qaadatay qabashadiisa iyadoo sheegtay in iskaashiga caalamiga ah uu door muhiim ah ka ciyaarayo soo qabashada dadka ka baxsada gudaha Mareykanka dhinaca kale garsooraha Soomaaliyeed ee caalamiga ah Cumar Cabdulqaadir Cartan ayaa gaaray dalka Kuwait kadib markii martiqaad rasmi ah ugu yimid gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Kuwait Cumar Cartan ayaa loo magacaabay inuu dhexdhexaadiyo kulanka u dhaxeeya Kuwait SC iyo Al-Qadasiya oo dhici doona 29ka bisha June 2026 kana mid ah kulamada ugu dambeeya ee horyaalka Zayn Premier League madaxweyne ku xigeenka Mareykanka DJ Pence ayaa yiri Iran waxa ay saxiixday heshiis xabad joojin ah anaguna waxa aan ku dhaqan gelinay hadii ay dood ka qabaan sida loo fulinayo heshiiskaas waxa ay si fudud u qaadan karaan telefoonka waxa ayna weynana soo xiriiri karaan ayuu yiri laakiin hadii ay weerar fuliyaan waxa looga jawaabi doonaa weerar xoogan ayuu yiri taas oo u muuqata hanjabaad oo u diray dhanka dawladda Iran dhinaca kale diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa xalay weerar ka fuliyay gudaha Iran iyadoo la sheegay in inta weerarkaas uu socday in la beegsaday goobo lagu keydiyo gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn halka sidoo kale weeraradan lagu bartilmaameedsaday raadarada la socodka dhaqdhaqaaqa ee yaala xeebaha Iran sida lagu sheegay war saxaafadeed wax yar ka hor ka soo baxay ama ay bahaysay taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka oo sidoo kale sheegay in weeraradan loogu jawaabayay markab ganacsi oo ku socdaalayay calanka dalka Singapore oo ay shalay weerartay Iran xilli uu ka sii baxayay marinbiyoodka Hormuz dhankeeda dawladda Iran iyada ma aysan soo daahin warkeeda ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa hadda ku dhawaaqay si adag oo degdeg ah inay ugu jawaabi doonaan weerarada ay xalay ka furiyeen diyaaradaha Mareykanka ka rageysteen gudaha Iran sida ay warisay Al Jazeera